الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيان حسينا وينينينا إسحسوسينينا أوامرتيسا جل جلاله جل شانه وذكري تذكير تعظيم شغان كدغنينا مر والبا ميل والبا إيه ولبا مرحلة والبا أما ظروف والبا وأنكو سغنهاي بإذن الله الكريم. wacdiga wareega barnaamijkiisii 22aad amba cashirkiisii 22aad waxaan ku soo qaadanay dulmiga in laga dhidhiyo. الظلم ظلمات يوم القيامة. نبي عليه الصلاة والسلام أيري ظلمك ومجديال مالنت قيامه. وحكستو قيامة مجدي كجلنا ينا نلشة الدنيا ده أيجا كسي مجدي بدن خمرجا يمن دوريها هادو dhibaato ku gelinayo aakhiro jahannamo ku geynayo adduunyada ku marsiinayo waa wax loo jeedo la ogyahay. dulmiguna waa ka sii cadya. dulmigu waa ka sii cadya. dulmiga markii laga hadlayo maxaa laga hadlaa kan geysanaya oo ku manaaficaadaya iyo kan ku saacidaya iyo kan iskaga baashaalaya iskaga sheekaysanaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. waa kow qofkii munkar arka ha joojiyo. fain lam yastadic hadduusan joojin karina fabilisaanihi ha ka hadlo. hadduusan ka hadli karina fabiqalbihi qalbiga ha ka naco. taas maxay tahay wadalika adcafu liimaan. iimaanka tii ugu hoosaysa wa. maanta maxaa ka taagan muqdisho? waxaa ka taagan dadkii deganaa dhulka dowladda oo masaakiinta ahaay oo ayagii la duminayo, kuwii magaalada dabaqyada ugu yaaleen maraakiibta u soo degaayeen lagu wareejinayo. meel kastoo la duminayana dadaa la dilaa, dadaa la dhaawacaa, dadaa alaabtooda la burburinaa, dadaa la xira. haddana kama hadli karaan. hadday ka hadlaan waa ciqaab kale. haddaaba dad la siinayo masaakiinta degan maa loo nidaamiyo lagana soo saaro sharci la yaqaano oo ciddii sharcigaas ku dhaqmi weysa si kale loo xallinayo. qarashka lagu nidaaminayo inay ayagu la baxaan, qoftii la bixi weysana ay iibiso oo qof la bixi karta ay ka iibiso maadaama ayagu degan yihiin. oo wadooyin in loo baxsho layskuma haysto, in la sharciyeeyo layskuma haysto. kow laba maxay noqonaysaa dhulkii oo basiibka ahaa oo layska xalaashaday. masaakiintii deganayd oo 70kii deganayd 80kii deganayd dowladdii siyaad barre ay uga tagtay ayaa cagta la marsiinaa. yaa la wareegoya nin ku xisaabtamaya kunkan boos. min kun ku dhufo waa 1 milyan, min 10 kun ku dhufo waa 10 milyan, min 30 kun iigu dhufo waa 30 milyan. marka 30 milyan 10 milyan qarasha ku bixi 20 milyan faa'iida waa qaadana. oo basiibkan 20 milyan faa'iidaha ka helay, 10 milyanna dadkii shaqada qabanay oo dadka dilaay barakicinay dhibaateynay u sii amba dhul ahaan ha u sii amba lacag ahaan ha u sii. waa laga aamusan yahay marka dulmigaas oo la joojin karin, laga hadli karin, qalbiga in laga naco ugu yaran waa. in la yidhahdo kunkan booso oo basiibka ah min 10 kunan ku dhufana 10 milyan ii noqone 5 milyan qarashka ha ku baxdo 5 milyan waa faa'iida. yaa samaynaya kuwii dabaqyada lahaa, kuwii maraakiibta u soo degay. laakiin waa laga aamusan yahay. xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaay oo la wada yaqaano oon muran ku jirin, wuxuu ahaay oo noogu tusaaleeyey hadday qoom doon saaran yihiin oo 2 dabaq ay tahay, qayb kale iyo qayb hoose ay kala tahay. kuwa hoose biyo markay doonanayaan, kuwa kore koraan wadaantooda ay dirtaan
badda biyaheeday soo qaataan danahooday ku fushtaan hadday dhahaan hoos annagaa biyaha u dhowe alwaaxaana iska qaadaynaa biyaha noo soo gelaya waxayna iska dhunsanaynaa kadibaan saaraynaa biyaha intaanba ka raadsanaynaa kor maxaa u koraynaa dadkaasna u dhibaynaa way wada halaagsamayaan dadkii dadka ugu baahnaay ugu faqiirsanaay ugu dhibbanaay ugu liitay dhaqaale ahaan ayaa iyadoo abaaro jirto ayaa meesha gurigay degganaayeen laga barakicina marka yaa iskaashanaya kuwa kursiga laga dhacay iyo kuwa guryaha laga dhacay kuwa kursiga laga dhacay iyo kuwa laga dhacay suuqoodii waxa iskaashanaya kuwa lagala wareegay guryahoodii ay degganaayeen meeshii loo sharciyey lahaa loo nidaamay lahaa iyo kuwa lagala wareegay kuraastii marka meesha nabad ma imaanayso maxaa yeelay dulmiyaa jira meel dulmi jirana nabad uma timaado meel dulmi jira nabadi ma timaado waxaa la iskaga tagaa kii dhulka degganaayoo laga qaatay iyo kii lacagta dhiibtoo laga gaday labadaasaa la iskaga tagaa laakiin kii ka baac mushtaray lacagtiisau qaata waa faa'iiday asiguna ma badbaadayo magaalada guryaha uu ku leeyahay iyo danaha uu ku leeyahay allayaa la yaqaanaa marka wuxuu badbaadaa intuu dadkan naftooda uu goy karo inta uu xiri karo inta uu dhaawici karo inta uu cabsi karo arkaanul islaam diinta waa inoogu jirtaa waa naqaanaa in badan waa fahamsan yihiin arkaanta arkaanul iimaanna waa sidoo kale waxaa jirta 5 arkaan oo loogu talagalay in maamulka iyo nidaamku ay fuliyaan haddii awoodi waayaanna dadka ayaa fulinaya cid walbaba intii ka qusaysa maxaa ka mid ah diintaada difaacane naftaada difaacane maalkaaga difaacane cirdigaaga difaacane caqligaaga difaacane waa 5taas ciddii ku xadgudubta axkaama ka taala sharciga ka yaala oo lagu ciqaabayo haddii marka naftaada lagu difaaci waayo maamulkii kuu difaaci waayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi xadiiska micnihiisu ahaa qofku waxa u bannaan naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa hadduu difaacayo ou ku dhinto shahiidow noqona waa hadduu ku dhinto shahiidow noqona marka kii dadweynaha dowladda ayaa waxaa la siiyey maalqabeennadii fuqarada laga baxshay 2 kii oo basiibyada meeshii loo sharciyey lahaa wadooyin loo furi lahaa loo nidaami lahaa sharci laga soo saari lahay maalqabeennada lagu siiyey tan saddexaadna maxay tahay dhulkii cabirka ahaay oo sharcigii siyaad barre ahaay ayaa lala wareegay markaasaa la iibsanaa dadkii degganaana maxaa la yidhi waa ku habsateen marka dadkii ku habsaday oo laakiin sharci aan u haysan ayaa xaaqaysaa adiga ayagii laftigooda ka iibinaysaa oo sharci ugu samaynaysid kuwii sharciga hore lahaa markay imaadaan iyo kuwii adigu aad ka barakiciso ka gadatay ayaa iskaga tegaysaa marka kuwii meeshaan laga qixiyey oo sharciga siyaad barre lahaay oo xabadda ka qaxay iyo kuwan iskaga habsaday soo kuwa ku habsaday way ogaayeen inaysan lahayn oo sagaashameeyadii ay soo degeen way ogaayeen way qirsanaayeen laakiin adiga ayaa timid waa u sharciyeysa wixii lacag haystay waa ka iibsatay milkiyaddan aad uga gadanaysa xaggee ka keentay kii hore marka uu yimaadana maxaa dhahaysaa marka adigu lacagtaada qaato waa iskaga baxday yaa isku haraya kii laga iibsaday iyo kii sharciga hore lahaay 80kii kii iibsaday iyo kii 2026 kaa iibsaday ayaa isku haraya marka nabad wax la yiraahdo ma imaanayso inta uu dulmi jiro marka 2 qolo 2 qabiil 2 qowmiyad oo cusub ayaa soo baxaysa
قومية ظالمين تأه iyo qoomiyada madluumiinta kuwa la dhacay iyo kuwa wax dhacay laakiin waxa dhibka ugu weyn ka taagnaana laba qolo la dhacay oo isdul saaran kii dhulkan gatay 80kii iyo kii gatay 2026 laakiin yaa dhaalim ah 2026 kii gatay oo booskii hebel degana oo yaqaanay lacagta uga daba ordaya iyo nabadoonka ka ganacsanayo dalaalka ka noqonaya iyo ganacsadaha ku xisaabtamaya alaabo 5,000 iyo fuusho kunkii boos 5 milyan waa 5 milyan meeqa dhimanaysa meeqa baaba'aysa wax ka gala male xaqa haddaan laga hadlin dowladdii Siyaad Barre wax kale ma duminin xaqii ayay ka leexatay dadkii ayay dulmisay suuqyadii ayay gubtay lacagtii u taalay bangiyada ayay ka soo qaadan waayeen dad hadda baadiye ka yimidna xaafada loo cabiraayay dabaqay ka dhisanayeen laangaruusalay gadanayeen nolol fiican ay helayeen inay iska dul qaadaan 21 sano ayay ku qaadatay laakiin maxaa yimid balaayo ka daranaa timid ilaa ay maanta soo gaartay meesha ay marayso nacam madaxdu ma oga sida ay sheegayaan maxkamadda hal aaday leeyihiin laakiin cid walba TV-gay taaganta 70 jir 80 jir 60 jir way wada ooyayaan culamaa u diinka aqlabkooda amba waa cabsanayaan amba waa laalushan yihiin amba yaraan ixtiraamka dowladda ay u haysay ilaalinayaan amba waxay ka cabsanayaan markay ugu yaraadaan in wasaaraddu ay ka qaado masaajidka ay maamulaan mawlaca ay maamulaan in laga wareejiyay ka baqaya laakiin culimadu waa dadkii u sharafta badnaa u ixtiraamka badnaa marka hadda aqbashid dadka u liita in la dulaysto haddaad aqbashid dulligaas waa kugu soo socdaa lacagtii shilin Soomaaliga yaa isticmaalay qof aan telefoon haysanin iyo qof aan haysanin internet ayaa isticmaalay yeeyihiin dadkaas waa dadka ugu liita dadka dhaqaale ahaan maalina qada maalina quuta iyadoo oo basiibkii laga barakiciyay isla markaasna lacagtiga gacanta ay ku haayeen la yiri ma shaqaynayso ayay banaanka taagan yihiin waxaa laga doodaa wadooyinkii laamiyada iyo interloogyadii biyihii ay keeneen ayaa waxay galeen meel hebel waxay dumiyeen meel hebel kuwa oo basiibkii laga dumiyey lacagtii ay haysteenna dhacday oo banaanka taagan roobku ayaga waa ku da'owya wuu ku socdaa wuu ku da'owya ilaahay ha laga baqo wattaquu llaaha lacallakum tuflixuun ilaahay ka baqa waa liibaanaysaane ilaahay ka baqa waa liibaanaysaane dulmiga joojiya waa liibaanaysaane innahu laa yuflixu adhaalimuun dhaalimiintu ma liibaanaan ma guulaystaan waxaa la yaqaanaa ciidanka meesha duminayay hebel iyo hebel waay ninka gadanayay hebel iyo hebel waay ninka dalaalayay hebel iyo hebel waay dadka xaafadda deganaay oo dhaheen aniga boosaan ku leeyahay waa kaala shaqaynaa ee 2 boos ma isiinaya markii waxaan la dhammeeyo waa la ogyahay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa uga ogaal badan kana awood badan cid walbana mudnaanta ay leedahay marsiinayo wixii aan qalday nafsiga shaydaan ay ka ahaatay wixii aan saxayna waafajinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka ahaatay allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad jazaakumullahu khayran kathiira ilaahu marqaatiyan ka tahay beriyan ka ahay qalbigan ka naca afkan ka dhaha dulmiga loo geysanayo dadka ugu maskiinsana dadkii la isfaray in loo gargaaro in meeshii u dambaysa lala gaaro ilaahu beriyan ka ah إله بريانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جزاكم الله خيرا كثيرا.